mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee degmada Xudun oo ay weheliyaan waxgaradka iyo haldoorka degmada iyo sidoo kale siyaasi Cabdifataax Ducaale Jaamac Baadari oo ka mid ah haldoorka gobolka Sool ayaa dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga yeegleeli doono degmada Xudun. Mashaariicda ay mas-uuliyiintu dhagax dhigeen ayaa waxaa ka mid ahaa godka qashinka ee degmada Xudun iyo sidoo kale guriga martida ee degmadaasi. mas-uuliyiinta golaha deegaanka degmada Xudun iyo odayaasha deegaanka oo madashaas dhagaxdhiga ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen mashaariicdan horumarineed ee golaha deegaanka ee degmada Xudun ay ka yeegleelayaan degmadaasi, waxaana mashaariicdani ay yihiin kuwo laga jari doono kabka dowladda hoose ee degmada Xudun, waxaana fududeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland iyo sidoo kale baanka dhexe. waa kuwan mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaanka oo arrimahaasi ka hadlay. isugu nimi anagoo ah maamulkii degmada Xudun, hadday ciidan tahay iyo hadday tahay dowladda hoose iyo wafdi nooga tibin laasacanood, maayarkii hore, ku-xigeenkii iyo ciidamadii intaba iyo odayaashii waxaan isugu nimi dhagaxdhig aanu dhagax dhignay goob degmada Xudun ka tirsan oo loogu talagalay in laga qodo god dhinac walba 60 mitir hoosna loo qodayo 3 mitir oo loogu talagalay magaalada qashinka laga ururiyo in lagu gubo. hawshaas waxaan u mahad celinaynaa ciddii soo qabanqaabisay. hawlo badan oo kalena waa la qabanayaa, cashuuri baa la bilaabi doonaa, waxaa la bilaabi doonaa toobarayntii magaalada, inkastoo ay jirto bileys yaraan oo had iyo jeer Xudun aad moodi bileysku inuu meel kaga xidhan yahay kale. taana waxaan codsanayaa ama aan codsanaynaa deegaan ahaanba in bileys ku filan oo dhaqaajiya cashuuraha iyo nabadgelyada iyo gaadiidkooda la helo. arrintaa waxaan u mahadnaqayaa agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. allah bidmillaahi kariin kani ma aha kii la iska dhagax dhigi jiray, waxa weeye gaadiidkii waa loo dalbay, waa la dhagax dhigay, waa la qodayaa, waa la dhammaystirayaa. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maamulka cusub, maayarka iyo waxqabadka hadda golaha deegaanku ay nagu soo biiriyeen. waxay qabad hore oo badanna deegaanka waa laga qabtay, jidadkiibaa wax laga qabtay, qashinkiibaa la guraa, khamriga horaanu warkiisii u soo gudbinayoo waa la gubay. waxqabad weyn baa degmada ka socda. waxaanu rajaynaynaa waxyaabaha naga dhiman ee maamulka degmada ka dhiman, waxaan codsanaynaa in aad iyo aad wax looga qabto. hadda qolyaha ka shaqeeya howlgalka degmada, taliyaha boolisku gaarigiisii weli lama keenin. boolisku wax gaadiidoo hadda ay ku howlgalaan ma leh, marba nooho iyo lug iyo bay wax ku baxsadaan. howlgalka degmada ka socdaan waa la arkaa. waxaan codsanaynaa in gaariga booliska ee maayarka iyo ay ka howlgaleen ee naloo ballan qaaday isaga iyo ciidankii booliskaba degmada lagu soo kordhiyo. run ahaantii degmada Xudun waa degmo weyn oo taariikhi ah, qabad hore oo badan waa laga qabtay. haddeerna waxay diyaar u yihiin inay dalka iyo dalkaba la qabsadaan. waa magaalo Somaliland ba mas'uuliyaddeeda saaran tahay. taa micnaheedu waxa weeye wax kasta oo ay xaq u leeyihiin, hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay wax kasta oo waxqabad ah degmadan xaq u leeyahay inay hesho. annagoo isku xiran ka dhalinyaro ahaan, ka siyaasad ahaan iyo odayaasha iyo ganacsatada degmada Xudunna waxaan isku dayaynaa iyadoo ay ku jirto daacadnimo, aaminnimo, xaqiiqnimo, wax kasta oo wanaagsan inaynu waxayna aynu raadsanno. wixii ina soo gaarana if iyo akhraba oo nagala xisaabtamaya inaynu iska hagaajino insha Allah haddii Ilaahay idmo. inta badan dadku waxbay dhagax dhigaan laakiin lama fuliyo. waxaanu nii sheegaynaa haddaad tihiin bulshada degmada Xudun iyo qolyihiina barta joogaba, hadday tahay iskurgada qashinka aad ku gur lahaydeen godkii iyo barnaamijka kale aanu soconaba waxaanu gacanta ku haynaa weeyaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo bangiga dhexe gobolka oo noo fududeeyay inaanu kabka yaga degmada wax ugu qabanno oo wax ugu amaahno 3 bilood walba waxna laga jaro. waxaanu aad ugu baahiyo weynahay gaarigii bileyska degmada oo aanu mar walba ku soo noqono oo ku soo culculino
oo aan weli gacanteeda soo gaadhin iyo bilayska wixii naga dhiman oo naloo ballan qaaday oo naloo soo buuxiyo waayo xaaladda deegaanka waxaanu doonaynaa inaanu wixii hore aad iyo aad wax uga bedelno haddaan la helin gaadhigii booliska dee boolisku cagama yeelanayo waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa oo fiiro gaara aad noogu eegaysaan inaad naga saacidaan oo na siisaan gaadhigii booliska iyo ciidan wixii naloo helayo ta booliska intaasaan ku dhaafayaa waxaan kaloo halkaa fariinta ku gudbinayaa wasaaradaha ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland xudun wax wasaaradoo ka furani ma ay jirto waxaanu codsanaynaa in wasaaradaha ka jira dawladda Soomaaliland in laga furo xudun qayb kasta degmada in looga furo haday waxbarasho tahay haday caafimaad tahay hadii ay maaliyad tahay hadii ay wax allaala wixii khuseeyo arrimaha bulshada maxamed cismaan cabdinuur telefishinka caalamiga VOS degmada xudun gobolka Sool